habeen wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada. Iran oo cashar u dhigtay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump muxuu ahaa hadaladii hanjabaadda lahaa ay isweydaarsadeen gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Mohammad Baqir Qalibaf iyo waliba madaxweyne Donald Trump maxay daaranayd kelmadii hogaamiyaha dalka Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei maxay saahayd fariintii gilgishay wadamada khaliijka. waxaan eegi doonaa magaca Soomaaliga weerarka ka geystay xaafad dadka Yahuuddu ay degaan oo ku taala magaalada London maalmadii shalay toolahayd oo la soo bandhigay iyo waliba ninkaasi sida xaaladiisu ay tahay. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan eegi doonaa isla markaana kugu soo gudbin doonaa. wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale bariga dhexe kaga soo koobi doonaa markaa. waa fiidnimo Jimco ay soo galayso Khamiisyo ay sii baxayso oo 30 bisha Abriil sanadka 2026 soo dhawaada daawadayaal. waxaan ku bilaabi doonaa hogaamiyaha dalkaasi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei kaasi oo isagu ka hadlay waxyaabo badan oo quseeya xaaladda bariga dhexe iyo waliba marxaladda dalkiisa uu marayo. hogaamiyahan ayaa isagu jeediyay hadal dheer waana kelmad qornayd marka laego oo warbaahinta lala wadaagay. telefishinada carabta ayaa baahiyay markaa qoraalka kelmadaasi oo ahayd mid markaa waxyaabo badan ay ku jireen isla markaana macno badan lahayd. waxaa looga hadlay arinta ammaanka ee khaliijka. waxay sheegtay dowladda Iran in iyagu aysan diyaar u ahayn in ay ku xadgudbaan dariskooda, laakiin waxay sheegeen xadgudubyada kuwa naga horjeeda ee marinka biyaha ayaan ka hortegaynaa bay yiraahdeen. waxaan samayn doonaa maamul cusub oo horseedaya deganaansho, horumar iyo waliba faa'iido dhaqaale. fariintan waxay ku socotaa guud ahaan wadamada khaliijka sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. yacni maamul cusub marka la dhisayo waxay ka dhignaanaysaa dowladda jamhuuriyadda islaamiga iyadoo inay tahay dhinaca maamuli doona marxaladda xigta markaa. Khamenei wuxuu sheegay Iran iyo dalalkeeda dariska khaliijku inay wadaagaan isla markaana masiirku isku mid u yahay. waxay Iran taabta iyaguna inay taabanayaan. dhibta waxaa keenay buu yiri ajaanibta, maadaama ajaanibtan qatar ay markaas yihiin gobolkan aysan joogin waa inay ka dhamaadaan. Iran dhaqdhaqaaqa military Mareykanka ayaa si toos u weedeeyay hogaamiyaha inuu hadda rabo xiisadda mar kale inuu kiciyo amni darana gobolka u horseedo. Iran waxay soo jeedisay amniga khaliijka in lagu sugayo kaliya iskaashi goboleed iyagu ay iskaashanayaan ama ay wadaagayaan wadamada xeebaha leh ee khaliijka. sidoo kale waxay sheegtay Iran oo hogaamiyaha isagu kelmadiisa ku jirtay xeer cusub oo ka hana qaadi doona marinbiyoodka Hormuz kaas oo keeni doona laba arrin oo muhiim ah, mid amni iyo waliba mid dhaqaale. dhinaca militariga iyo siyaasadda ayaa sidoo kale kelmadda lagu soo hadal qaaday. Iran waxay ka digtay suurtagalnimada dhaqdhaqaaqa military oo Mareykanka oo ku diyaarinayo weerar kale maadaama hub urursi iyo waliba diyaarinta ciidamadiisa uu isagu ku jiro marka laga hadlayo madaxweyne Donald Trump digdigtiisa iyo waliba tiimkiisa dagaalka. sababta hadalka waqtigan ayaa lagu sheegay inay ku soo beegantay xuska maalinta qaranka ee khaliijka Faris ee jamhuuriyadda islaamiga, taas oo aan ku sharaxi doono marka aanu gaarno hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Mohammad Baqir Qalibaf. Mareykanku wuxuu arkaa marinka Hormuz mid muhiim ah, mid istiraatiiji ah. Iranna way fahamsan tahay markaa. waxaa la bayaanka lagu soo qaaday sii wadista cunaqabataynta Iran ama qorshayaal military sida weeraro ama xakameyn qayb ka mid ah marinka. waxa uu sheegay inuusan door bidaynin weerar military balse uu jecel yahay cadaadis dhaqaale. wuxuu sidoo kale raadinayaa heshiis aan khasab ahayn marka laga hadlayo madaxweynaha dalka Mareykanka, laakiin taasi oo isagu kaga cararayo isdhiibidda amaba inuu ku fashilmay wixii uu ku soo ololeeyay. Mareykanka bilowgii qorshihiisu wuxuu ahaa in weerar uu ku qaado Iran dowladda ka takhaluso toddobaadyo iyo maalmo kaliyana dunida dhan wadamada reer galbeedku waxay lahaayeen xitaa wadamada carabtu Iran way u dhamaatay maalmaheeduna way tirsamaan maadaama odaygii ugu sareeyay markaa qudha laga jaray
laakiin Iiraaniyiintu waxay noqdeen dad aan la waabin karin isla markaana aad iyo aad u adag laakiin wixii dhacay waxay ahaayeen waxaan caadi ahayn fariin adag bay hawada isu mariyeen gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Iiraan Mohamed Baqir Qalibaf iyo waliba madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arintu waxay ka bilaabatay markii Donald Trump isagu sawir soo dhigay bartiisa Truth Social kaasoo isagu ku tilmaamayo in dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan marinbiyoodkan shaqaysan ku lahayn isagoo marinbiyoodkan ugu magac daray marinbiyoodka ama Trump Hormuz ama Hormuzka inuu leeyahay Trump marka booska Hormuz loo bedelay marka ama Trump Street marka taasi oo jawaab culus ay ka bixisay dowladda Iiraan waxay ka sheekaysay dhacdo yaab lahayd oo taariikhda marka laga hadlayo arintan quseysay marka halkan ayaa lagu leeyahay Trump taariikhda maba soo akhrin maba garanayo sababtoo ah Iiraan waxay ka hadlaysay maanta waxaan caadi ahayn maanta oo kale 3 Abriil Iiraan waxay u tahay maalin weyn waa maalin qaran waa maalin xus iyagu ay sameeyaan su'aasha la isweydiinayo waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Iiraan Mohamed Baqir Qalibaf fariintiisu maxay daaranayd Qalibaf waxa uu sheegay Iiraan dhulkeeda inay xoreysatay maanta oo kale ay ka saartay gumaysi shisheeye kaasoo ka adkaaday inta badan quwadihii Yurub ama dhamaantoodba waxa uu xusay inay ahayd dhacdo taariikhi ah 30kii bishii Abriil 1622 dowladdii Safawiyiinta Iiraan ka dhisnayd ayaa ka adkaatay Boortaqiiska lagana saaray gumaysigii Boortaqiiska Strait of Hormuz ama marinbiyoodka Hormuz kaas oo socday gumaysiga in ka badan 100 sano Iiraan waxay u dabaaldegtaa 3 Abriil maalinta gacanka Faris ama Persian Gulf Day si loo xuso guushaasi taariikhiga ah Qalibaf ayaa xusuusiyay Donald Trump maalintan horto in marinbiyoodka Hormuz taariikhdan laga soo maray waqtigaasina la bixiyay gacanka Faris waxa laga yaabaa carabta inaad ku aragtay inay ku yiraahdaan Khaliij al-Arabi Bahr al-Khaliij laakiin waxaas Iiraan uma qorna Iiraan marinbiyoodka Hormuz waxay u leedahay gacanka Faris Persian Gulf Day ayay maanta oo kale u dabaaldegtaa waana 3 Abriil 1622 markii ay ka saareen Boortaqiiska kaasoo 100 sano gumaysanay Qalibaf oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmi doono Mareykanka masiirkii Boortaqiiska wixii walaaladiina Boortaqiisku ay mareen ayaad mari doontaan iska waalina buu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Iiraan Mohamed Baqir Qalibaf hadalkiisu waa u dheeraa waliba si adag buu markaas isagu ahaa mid ugu sawiray sida xaalku yahay marka waxa uu sheegay inay adag tahay Mareykanka guul fudud inay helaan waxa uu yiri Iiraan ayaa xukumi doonta gacanka iyo marinbiyoodka Hormuz iyadoo aysan jiri doonin faragelin iyo Mareykanka inuu faragelin karo maanta dalka Iiraan si aan caadi ahayn ayaa looga dabaaldegay guushan marka la eego xuska maalintan iyadoo la adeegsanayo sawirro warbaahinta dhan ay baahinayso lala barbar dhigayo cadaadiska waqti xaadirkan Mareykanka Iiraan ay ku leeyihiin gumaysi in ka badan 100 sano Boortaqiiska nagu haystay ayaan u soo sameernay waan ka guuleysanay Iiraan waxay sidoo kale fariin u dirtay caalamka inay u dulqaadatay cadaadiskaasi gumaysiga muddada dheer sidaas daraaddeed aysan ka tanasuli doonin mowqifkeeda saddexda ah marinbiyoodka Hormuz gantaaladeeda markaasi balastiga iyo waliba hubkeeda dalka lagu difaacayo lagu daray arinta kale ee aan caadiga ahayn ee uraniumta la bacriminayo horto hadalka gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Iiraan Mohamed Baqir Qalibaf intan ayuu isagu daarnaa shaqada kale ee xiisaha leh waxay tahay goorma ayuu dagaalka bilaabanaya sidaad la socoteen Iiraaniyiintu heegan bay ku jiraan kelmadii uu maanta jeediyay hogaamiyahoodii ugu sareeyay Ayatollah Mujtaba Khamenei waxay ahayd mid la dhigay meesheedii hanjabaada iyo waliba digdigta Trump iyo weerarada suurtagalka ee dalkaasi lagu soo qaadi karana ka jawaabaysay markaa waxa heegan la geliyay dhammaan ciidamada kala duwan waxa la sheegay gantaal hadii uu ka yimaado halka Mareykanka iyo waliba wadamada Khaliijka in markaasi gantaal lagu jawaabi doono waliba
aad iyo aad baana markaasi sheekadu ay xasaasi u tahay saacadaha hadda aanu marayno marka. laakiin Mareykanka muxuu isagu sameynaya? Gordaway waxaa soo muuqday Hexet CBS ee Mareykanka laga leeyahay ayaa warbixin ka diyaarisay. ninkan waxa uu sheegay 60kii cisho ee dowladda Mareykanka u haysatay ee Trump awood u lahaa dagaal inuu weerar banaanka inuu soo qaado oo uu fuliyo oo markaa inta uu dagaalamay kara dagaalamo ka hor inta aan la horgeynin Congress-ka. wuxuu sheegay inay ku ekayd amaba la hakiyay waqtigii xabad joojinta markaasi maadaama xabadii istaagtay waqtigana waa uu istaagayaa. laba arrin bay ka leeyihiin baa leeyahay. kow inay yiraahdaan 60 cisho oo cusub ay noo bilaabanaysaa, ama inay yiraahdaan maalmihii noo haray baa halkan ka wadi doonaa waanu markaasi sii baabi'in doonaa Iiraan markaa. laakiin Congress-ku isha buu ku hayaa maalimada Jimcaha ayay ku egtahay 60kii cisho ee loo ogolaa Trump. waxaana looga baahan hadda wixii ka dambeeya in Congress-ku isagu geeyo ogolaasho uu ka soo helo dagaal markaa. haddii Congress-ku isagu ka waayo wuxuu ku qasban yahay muddo bila ciidamada dibadda jooga inuu ku soo saaro Mareykankana uu isagu ku soo celiyo. halkaas baa horta sheekadu ay markaasi maraysaa marka laga hadlayo arrintan. wararkii ugu dambeeyay sidoo kale dowladda waddankaasi Iiraan buu ka hadlay. Hexet wuxuu yiri Iiraaniyiintu iyaga ayaa guuldarro weyn la kulmi doona sida hadalka uu isagu dhigay. wuxuu tilmaamay muhladda ama waqtiga 60ka cisho ee Congress-ka markaasi way taagan tahay, isagoo tilmaamaya inay rajeynayaan in xal la helo markaa sida hadalku isagu dhigay. laakiin ninkan xitaa Congress-kii Mareykanka xildhibaanadii dimuqraadiga ayaa ku tilmaamay ninkan inuu beenlow yahay, inuusan kelmad runa garanayn, in wax badan oo saxa uu isagu isdaba marinayo. waxaasoo dhan waxay ahaayeen kelmado adag oo hawada loo marinayay markaa. CNN waxaa sidoo kale ay tilmaantay Trump hadda inuu ku fakarayo isbahaysi cusub oo wadamada caalamka gaar ahaan kuwa ugu tunka weyn uu isagu doonayo inuu isku soo dardaro ciidamo isla markaana la isku dayo marinbiyoodka Hormuz in la furo markaa. dokumenti sira ayaa la soo bandhigay oo Trump uu isagu u diray wadamada waliba safaaradaha caalamka ee ku yaala dalkaasi Mareykanka. waa safaaradaha dowladahaasi ay ku leeyihiin ayaa uu marsiiyay baa leeyahay. ma sahlana sheekadaasi xiise gaarabay iyaduna lahaan doontaa markaa. waan sugi doonaa wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyay ayay kuwan ahaayeen. maanta taangiyo ayaa laga gubay ciidamada Israa'iiliyiinta iyagu ku sugnaa koonfurta dalka Lubnaan. halkaasi dagaalo qaraar ayaa ka dhacay. diyaarado aan duuliye lahayn ayaa lagu garaacay ciidamadaasi qaarkood oo iyagu fadhiyay qaybo ka mid ah waqooyiga Israa'iil. waliba waxaa jiray dhowr askari oo laga dilay iyo kuwo kale oo laga dhaawacay ciidamadaasi markaa. barnaamijkeena caawa daawadayaal waa naga intaa. intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waa anigoo Cabduqaadir Qayska oo idin leh. channelka subscribe saaro, sii share garee muuqaalka like ku dhiirigeli. mahadsanid.